السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada dhamaantiin meel walba aad joogtiin. Sida ogtiin saaxiibayaal maalin walba oo isniina waxaan halkan soo gelinaa falanqaynta suuqa iyo isbuucaas waxaan ka filan karnay jihada suuqa uu socdo. Si ay saaxiibada ku xiran barteena YouTube Somali Online Opportunities si public ah ay uga faa'iideysan karaan maxaa la yiraahdaa falanqaynta halkan kusoo gudbino. Markale soo dhowaada falan hadda halkan tahay markii ugu horeysay aad soo booqato soo dhawo subscribe leh waxaa laga yaabaa inaad ka faa'iido wax badan oo information oo forex ku saabsan. Sidoo kale waxaan ku sheegaa inaad soo booqato asna barteena Telegram-ka Somali Online Opportunities. halkan waxa ugu sahlan tahay wixii degdeg oo jiro markaas oo kale halkan ayaan qoraal ahaan ugu soo post gareynaa si waxa la yiraahdo dadku ay ugu fududaato in qofku qoraalka halkaas ka daawacan karo kala socon karo. Haddii aynu ku sii socono waxa la yiraahdo falanqaynta suuqa sida ogtiin waxaan ka bilownaa mar walba DXY oo iyadoo tahay indexka lacagaha dollarka looga tusaale qaato. haddii aynu ku sii socono waxa la yiraahdo indexka dollarka waxa ujeedin last week waa korkii hoosta u dambeysay halkan hayran waa laga sarmaray oo waxa kan wixii ka sarmaray hayran waa ku caday waxa haduuba laba kandal ka dul maraan ee madax kala dul baxaan oo ku furmaan hayran waa laga dul maray ka dhigantay. waxaan u jeedin in meeshan laga dul maro laba kandal ka badan ay ka dul furmeen. sidoo kale haddii hoostiisa laga hoos marane laba kandal wax ka badan iyadana waa laga furmay waa la jabiyay ka micnataan ku yiri. haddii u jeedno halkan this kandal baa xog kusoo jabiyay kandala yaryar oo isla leeg ayaa dib u noqday marka laakiinse already waxa ujeedaa haddii last week halkan meeshan trade ka qaadanay oo markii korkaan la jabiyay lagu soo noqday meeshan ayada wixii entry u ahaa ilaa korkaan laakiin waxa ujeedaa hadda in la soo noqday war iyo dhamaantiis trade-kan hadda maxaa ka xal ah maxaa ka macquul ah wax kale kama macquul ah laba option la waaye inaad tiraahdid trade-kan meeshan waa la jabiyay oo waxaan sugayaa reversal oo waxaan sugaa inuu halkan tago oo kadibna toos handana marka one more time ay hesho hoosta ka hooseysay kadibna trendiga halkaas ka bilowday ayaad sii raaci kartaa. waa isla faana sooma trendiga halkaa ka bilowday ayaad raaci kartaa. waa tan kale waxaad samayn kartaa inaad sugtid trade-kan in sheekadiisa oo warkiisa kala cadaanayso oo ilaa hoostan oo hal bullback tago. after this markuu bullback meelahan tago bullback labaad oo soo noqonaya waxaa la yiraahdaa waa raaci kartaa oo waa ka faa'iideysan kartaa markaad liquidity iyo waxa la yiraahdo counter trend iyo wixii aad ka heshid waa ka faa'iideysan kartaa. waa isfaana sooma sababtee markaan sidaan qasab ugu tahay waxa waaye si official horta loo wada dhameystiro dhaqaaq oo toos ah u dhameystiro kadibna kan labaad ka raac aysan ahayn haddii aragtay halkaan inuu madax kala baxay iska aaminin been gurbi noqon kartaa inuu trend kale oo one more time oo halkaan taga kadibna soo noqdo insa waa inuu waxa la yiraahdo dhaqaaqan uu sii dheeraadayo hoostan uu taga kadib ayaad waxa la yiraahdaa aad ka faa'iideysan kartaa. haddii aan noqdo xeeraan ka ilaaway last time newska idin sheegayo oo qoraal ahaan halkan aan idinku soo geliyay newskan oo ahaa CAD iyo USD ka soo baxay waxaan ku yiri waxa uga faa'iideysan kartaa qaabkii video horaan ku sharxay videogana waa kan ka sii horeeyay kan saddexaad oo maleynaa inuu yahay. waxaan ku yiri kor iyo hoostaada dhiganaysa meel aadaay iyo no mataqaanid anama aqaan adna mataqaanid marka korna waxa la yiraahdaa buy stop dhigo hoosna sell stop si aad labadoodaba kii ku furmaad uga faa'iidid adoo risk gareynaya ku yiri qayb kamid ah riskna qaadanay. halkan waxa qaadanay 20 pips kana 15 pips oo riskiga qaadan riskigana xisaabsanay laakiin maxaa la yiraahdaa 40 pips waan ka helnay intana 40 laakiin kana furmay oo reed halkaan markii la imaaday suuqna furmay toos ugu aaday sida option-kii uu ku dhuftay. video horta ku sharxay ana hadda casharka naga qasam rabo
gaarkiisa ayaad waxaa la yidhaha usoo daawan kartaa. So marka USD ayadana intii DXY ka macquulka ahayd baa ka macquula. Oo halkan waxaa ujeedaa in ayadana madaxa lagala sii baxo la qashqashaaday. Marka warkeeda ayaga ma cadda ilaa iyo galabta iyo beri subaxii hore dhan waa kala caddaan doonaa insha Allah. Lacagaha fursadda leh JBP USD waay, laakiin iyadana waxay ku xiran tahay trendigan oo DXY. iyadana marka hubanti kana siyaa male, laakiin trade ayada ka macquula iska jira. waa in laakiin hoostaan uu tradekan soo jebiyaa si xooliya, kadibna meelahan uu ku noqda, kadib markaasaan halkaa ka raaci karnaa. laakiin waa sidaan rabnaa hadduu noo sameeyo halkan uu jebiyo lacagtan ay karansiya hubanti ay noqoto, markaas ayaa aan bislaysan karnaa. kahor wax kale oo ka dhannaana macquula ma jiro. sidoo kale USDJB maalinkii u dambeeyay newskan salaa ku buush gareey sell limit baa ugu xirnaa marka halka in la jabiyo halkaan ay timaadaan inuu u furo trade uu ii furay, laakiinse 30 biibo riskiga ka dhacday. laakiin waa in riskiga ogaata, ma ahan in mar walba profit-ka lagu tuso, in riskigana uu meesha ku jiro ina ogaatid. laakiin marka risk management-ga aad ku dartid problemkeedu ma banaan faan ka dhamaantii inaad risk management ku dari doontiin baan idin rajeynin. iyadana sidoo kale waa la soo jebiyey. waxa aynu sugnaa waa in halkaan la taga, in balansigan la soo buuxiyo, suuqa halkaan uu soo buuxiyo. halkaan marka soo buuxiyo ayaan waxaan ka sugay liquidity-geeni iyo waxayna kalena keen, kadibna asagana dhown baan usoo raaci doonaa hadduu alla idmo. lacagaha fursadda leh marka aan idiin soo diyaariyay waxaa kamid ah EURJPY. sidaad la socotaa EURJPY waxaan waa 1 hour-kii, laakiin 15 minutes-ka ayuu trendi kala ka bilowday. sidaad la socotiin waxaa ujeedin 15 minutes lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and then halkaan markii la tago halkaan already hadda waa ka haysanaa liquidity waa ka haysanaa oo tab ah. demand zone waa kan waa ka haysanaa, Allah musta'an. demand zone waa ka haysanaa already. trade-ka waxay markaa aan sugnaa waa in halkaan la yimaado ii sheeg meeshaan la yimaado oo aan ka helnaa waxa la yiraahdo ii sheeg counter trend oo meelahan ah suuquna loo jibiyo. trade-kan waa inuu sidaan ku socdaa higher low, higher high, higher high, higher low, higher high, inuu sidaan si lamid oo ku socda. kadibna hoostan waa in la jibiyaa, kadib lagu noqdaa, kadib aan halkaan kasoo raacnaa. waa 15 minutes. meesha ugu badan oo trade-kan ka ceyrisaan waa inuu halkaan ahaada. inaan isla faana waa inuu halkaan ahaada, sababtoo markuu halkaan imaado kii 1 hour-ka la raba inaad meesha ku jira xisaabsatid oo haddana halkaan markii yimaado haddii la jibiyo aad trade-ga weynaa oo kasoo horjeedka 1 hour-ka aadid, ma ahan inaad hoos ilaa uu kan uu kusii raaco. sidoo kale EURUAD iyadana waxaa ujeediin 1 hour-ka markaad joogtid inay waxa la yiraahdo ii sheeg clear trend ay tahay. halkaan waa 4 hour waaye, halkaan 4 hour higher high-geedii waaye. haddii aynu calaamadsano horta mid walba mar walba calaamadaad wax ku fahmaysaa marka qofku bilow yahay, soo calaamadso si aad waxaan kugu kala cadaadaan. 4 hour higher high, higher low, higher high, higher high, 4 hour higher high, and then halkaan waxaa uga jeedaa 1 hour inuu ku jiro 1 hour higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and then intaan markay dhacdo waxaa sugaysaa in meelahan uu demand zone-kaadi kuu noqdo, demand zone-kaadi inuu meelahan kuu ahaado. waxa la yiraahdo meelahana liquidity aad ka heshaa, ma fahanti? meelahan liquidity aad ka heshaa, meelahan liquidity oo bottom waa inaad ka heshaa. kadibna markuu liquidity bottom-kaas aa heshin waa in halkaan lagu yimaada, kadibna aad 1 hour kasta qaadata. iyadana warkeedu
inuu idin cad yahay ayaan rajeynaya. haddaynu kusii socono sidoo kale euro NCD lacagaha eurada ayaa waxa la yiraahdaa suuq markuu saan oo kale uu yahay doolarka waxba ka cadeyn ayaa fursada leh. marka lacagaha eurada isku day inaad kaga faa'iideysataan jihadii guud ay ku jirto oo ma fahantay. marka iyadana waxa ujeedin in waxa la yiraahdo sheeg 1 hour-keedu iyo 15 minutes iyo 4 hour-keedu wayadan israacsan yahay oo jihadeedu yahay waxa la yiraahdaa uptrend korkaan higher high higher low higher high higher low higher high higher low kan waa sameeyeen total is wada noqonaya. kan marka ku sii hoos jira asagana 15 minutes ayuu noqon karaa iyo 30 daqiiqo asagana sidaas ayuu ahaan karaa. soo markuu sidaan kale yahay trade waa marka uu macaan tahay oo fursadaada ay anytime imaan karto meesha kuugu soo sokayso dhimaa zoonka ayaad mar walba ilaalinaysaa. halkaan markaa ilaalisid halkaan waxaa ka raadinaysaa liquidity inuu hadda sameynayo u eg tahay oo bottom kadibna suuq inuu halkaan ku yimaado suuq markaas counter trendkii wixii kale ka raadi isagana kor ayaad usii raacaysaa. iyadana euro NCD fursadaas ayaa ka jirto inaad isha ku haysin ayaan idin rajeyn doonaa. sidoo kale eurocad sida ujeedin iyadana waxaa la yiraahdaa trendigeedu waa 1 hour-ku waa up sidaad ujeedin 4 hour way kan oo good kadibna waxa ku dhex jira 1 hour-kii waaye sababtoo ah 4 hour-ka markaad tagtid ayaad si cad oo kala arkaysa kana 4 hour-kii u koreeyay waa kan kii ku xigayna waa kan soo kan marka wuxuu noqonayaa 1 hour kadib meelahan in lagu yimaado raadi intii kale shuruudaha kadib asagana inuu kor u aado ayaan u rajeynaynaa insha Allah. marka laakiin suuqa is dhameystiran waxa dhawaa qasbin in lagu dhitigeesha counter trend ka yeesha demand zone ka yeesha isku wada waafaqda istiraatiijiga kadib markaas ayaa trade geli karta. NCD ka last week marba meelaha ka galay laakiin SLB Doriton BB laakiin 12 miya laakiin ma ahayn trade oo kiya scalping sheekadeedii bay ahayd laakiin anyway dib ma laha deertan ayaa u maleysanay waxa la yiraahdo isdhamaystirtay. halkaan waxa ujeedaa 1 hour inuu yahay suuqan halkaan demand zone ay tahay opposite zone ka jabi liquidity halkaan laga helay liquidity kadib in la helay waxa la yiraahdo mitigation move-kii oo kan ahaa mitigation markii la helay ma la soo jabi mitigation of course waa soo jabi waa kana kadib maxaa dhacay ma lagu noqday waa lagu noqday marka halkaan lagu noqday 30 daqiiqo iyo 15 minutes ka la rabaa inaad tagtid aad fiirisid trendiga yarka oo ku socdo sida oo waxa la yiraahdaa oo ku dhamaaday higher high higher low higher high higher low higher high higher low kan higher madax halkaas inuu zoom ka tago kadib soo noqdo uu jabiyo hoostaan kadibna uu inoogu noqdo markaas ayay trade-kan asagana active yahay. kan wali waa dhow yahay hadda 1 hour kadib 2 hour kadibna insha Allah uu active inoo noqdo ayaan rajeyn doonaa. barteena Telegram-na waa soo dhigi doonaa NCD ka hadda leedma iyadana la socdo waa trade-ka ugu macquulsan oo hadda soo dhow. sidoo kale NCD JPY iyadana hadii aynu fiirino NCD JPY iyadoo ma ahan trade clear ah sababtoo ah meeshaan waxay ku jirtaa waxa la yiraahdo correction soo warkeeda ayada ma cadda iskaga dhacmo ku trade sinayay trade kale oo ka macquulsan baad heli kartaa. AUD JPY
sidaad ujeediin waxaa ujeediin inay tahay 1 hour keedu trendy lower low lower high lower low lower high lower low lower high lower low and then marka halkan ay lower low tahay halkan waxa uga jeedaa inay demand zone ku jirto demand zone ka heshay demand zone marka halkan ka heshay meeshan waxa ina liquidity waxa iska heshaa kadibna trending halka taga counter trend heshaa counter trendiga marka heshine oo lagu soo jabiyo 5 minutes iyo 15 ka waana sayna active ku aada halkaas ka gali kartaa meeshan ilaa hoostaan ayaad ku target gareynaysaa iyaga tradeeda ugu dhow waay AUD card iyadana waa trade kale oo macquul ah oo hadda dhow soo bislaan kara sababtuna waxay tahay wax kale ma ahan iyadana haddii aynu 1 hour keed ujeedid waxa ujeedaa inuu clear yahay inuu clear trend down trend yahay suuq markuu trend dhigisan yahay waa marka ugu fursada fiican aad wax ka ceyrin kartid suuq laakiin trend ahayn waxba ka meedi kartid so marka lower low waa kan lower high waa kan lower low waa kan and then korkan iyo hoostan inta u dhaxaysa ayaa la rabaa inaad fursadaada ka ceyrisid fursada korkan iyo hoostan waa meesha ka ceyrinaysid wax kale ma sameynaysid demand zone-ka kugu soo dhawaa raadinaysaa markaas intaan heshid waxa ujeedaa inuu demand zone shortdiis waa taqaanaa in toos dhaqaaqa opposite zone-kaadi waa inuu jabiyaa liquidity meelaha waa inaad ka heshaa iyo liquidity waa kan liquidity marka halkan ka heshid waa in mitigation uu dhacaa waa ujeedaa alaal mustacaan toos markii loo tago waa in lasoo jabiyaa asagii lagu noqdaa active trade-kaas markaas ku ahaan tradeyadan hadda tan dhow ayaa laga yaabaa inay isbedelaan markuu video soo gaaro taxliilintaada ku dar la soco isheeg taxliilintaada ku daba sidoo kale lacag halkan CHFJPY CHFJPY iyadana last week halkan ay fursad waxaan ka helnay hadda waxa ujeedeen hoostan ayaa ah midda ugu dambeysa taas waa laga soo tagay hoostan ayaa iyada halkan waa meesha hadda ka sugayna demand zone-kan liquidity halkan waa uga jeedaa kadib halkan markii la imaado ayaan tradekeena waxa la yiraahdo counter trend ka raadinayna isagana halkaas ayaan ka qiimeyn doonaa hadda waa la waxaa idin sheegay dadkiina strategigan aan fahansanayn oo isticmaalin fadlan hadhowtidii problem ayay kugu keenaysaa inaad waxaan isku qastidii waxaaga markaa isku dirtid wax isku shaqeynayana ma ahan haddii aad u baahanta inaad khayada baratidna asharaanta ayuu free oo qodob aan uga hadlay ay waxay yaalaan barteena YouTube booqo playlistiga tag waxaa la yidhaha soo kala fahan kadib ayay ku shaqeyn doontaa inaad si fiican u fahanta ku rajeyn doonaa aad maxaa la yidhahdaa nala trade gareyn doontid inta ka horeysana ha ku wareerin halkan waxaan ugu talagalay qofkii istaraatiijiga soo fahmay inay caawin u noqoto inuu waxaa la yidhahda meel uu waxaa la yidhahda wixii dad la trade gareeyo uu kasii helo sidaas ayaan ugu talagalay waa ku mahadsantihiin sida ay noola socotiin fadlan telegramka tag oo isagana halkaas kala soco wixii information ah tradedan qaarkii dhadhow active noqdo kale halkaas ayaa soo digi doonaa haduu alla idmo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.